iyadoo ay maalin qura ka arsan tahay maalinta koowaad ee Ciidul Adha ayaa waxaan booqday suuqa weyn ee magaalada Cadaado. Suuqa ayaa ahaa mid aad u saxmad badan. Qaar ka mid ah dalaaleyda suuqa ayaan waxaan wax ka weydiiyay isbedelka suuqa sanadkan iyo sanadii hore maadaama ay soo dhowdahay maalinta koowaad ee Ciidul Adha. dadweynaha waa soo saf magaalo kale loo soo socdo hadda ma lahan awal boosaasi wax baa loo ridi jiray waa laga hakay marka magaalada cunaysa 35 sidaas ah lagu kala badan dadku hadda u yimid iyo sidaas ah loo joogo waxaan u maleynaynaa in ciidda si fiican dadku looga faa'iideysto waxaan dalaal xoolaha gada marka maanta waxa laga dareemayaa xoolaha dhaqaaqa rafada dhinaceeda marka ilaa $5 ala neef ku siyaaday marka waa arkaysa dadka iyo xoolaha iyo say hadda way imaanayaan wali way soo socdaan inta dhaqdhaqaaqa xoolaha waxa weeye waa la keenayaa qof kasta wuxuu safraya waxa ciid baa jirta ayaa la leeyahay marka xoolaha wala soo wadaya xoolaha dhan waa laga dareemaya waliba xoolaha maanta qalliinka ah oo geel iyo lo'no ma yidaan laakiin anaga araan wadna suuqa saaka arga dhaqanka waxaan gadayay 45 baa u sarreeyay neefkan gadayay ilaa 35 ugu yaray awalna 30 40 wax ka dhiman waxa ka dhiman $5 ugu yaraan ama baabtiyeed maanta inay bilow tahay ba sideedaba dhaqdhaqaaqeedu gooyaan sidoo kale qaar ka mid ah dadka suuqa u soo iibkaysta xoolaha ayaa iyaguna dhankooda cabiray dareenkooda magacaygu waxa la yiraahdaa Xasan Cali Warsame waxaan hadda ka soo safray deegaankan la yiraahdo Kaynaan hadda ka soo tagoon arigan ka soo waday marka suuqa xoolaha ayaa hadda joognaa oo ku sugannahay xoolaha waa la ka iibsadaayo waa kala socdaan waxaan ka dareemay jawi iibku oo kala socdo ulxada xoolaha qalliinka baahidu sababta maxay tahay waxay tahay dad badan oo raba inay wadanka ku qashaan xoolaha ku bireystaan sida dad soo xawilsha ama dadka deegaanka oo iska bixinayo reer diyaar garowga ciidda loo diyaar garoobay marka xoolaha sidaas kuwa iyada ku fiican oo ay qaalib yihiin farq badan baa u dhaxeeyo hadda ay fiican yihiin maanta hadda wanankan oo kale waa weyn guud ahaan gobolada dalka ayaa waxaa laga dareemayaa saxmad aad u ballaaran waxaana diyaar garowga ku soo beegmaya iyadoo ay maalin qura ka harsan tahay munaasabada Ciidul Adha oo sanad kasta 10 bishan Carafo ay u dabaaldegaan dhammaan muslimiinta. Liban Cabdi Ciise magaalada Cadaado.